الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. xildhibaanada golaha shacabka ee nagala soo qayb galay caawa munaasabadan, siyaasiyiinta kale kuwa xilka haya iyo kuwa aan xilka hayn, taliyayaasha ciidamada qalabka sida, mas-uuliyiinta kala gedisan ee maamulka gobolka Banaadir, dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan kuwa aan xusnay iyo kuwa aynan xusnin, dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. caawa waa munaasabad dhiirigelin ah oo lagu soo bandhigayay muddadii 3 sano ahayd ee sida midnimada aan u wada shaqaynaynay wixii aan qabanay. xaqiiqdii waxaan wada ognahay qof kaligiis wax qaban kara inuusan jirin. waxyaabaha noo qabsoomay waxa ay noogu qabsoomeen iraadada ilaahay ama rabitaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala. wixii soo raacana waxay ahaayeen iskaashi u dhaxeeya dowladda Soomaaliya oo heer federaal iyo heer gobol, si gaar ah mas-uuliyiinta gobolka Banaadir oo kaashanaya bulshada reer Banaadir. runtii waxyaabaha noo qabsoomay ma ahayn wax yar, mana ahayn wixii aan rabnay inaan qabanno, oo waxaan rabnay intaas ka badan inaan qabanno, balse inta aan qabannay ayaan ahayn wax si sahlan loo qabtay. waxaad ogtihiin caqabado badan oo aan nooba qorshaysnayn laakiin qadar ilaahaya inay nagu yimaadeen, oo ay ka mid tahay COVID-19, oo ay ka mid tahay rabshado siyaasadeed, wixii awal jiray oo laftooda u baahnaa la tacaalid oo amni darrada guud ahaan dalka ka jirta ay ka mid tahay. ayadoo intaasoo dhan ay caqabado jira ay yihiin, haddana lama niyad jebin, si midnimo leh ayaa lagu shaqaynayay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh. inta aan mas-uuliyaddaas haynana aniga iyo bahda gobolka Banaadir oo iskaashanaya waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sidii aan u dadaalaynay iyo si kasii wanaagsan u sii dadaalno insha allahu tacaala. waad mahadsantiin mudanayaal iyo marwooyin. qayb kasta oo naga mid ah, qof kasta oo naga mid ah, mansabkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ayaa xil uga saaran yahay inuu la yimaado waxqabad muuqda, isagoo ayaan ka ahayn istustus, balse ay ka tahay ilaahay dartiis iyo jacayl dalkiisa uu u qabo. markaas ayay suurogeli kartaa insha allahu in ummadeenna aan wax uga tagno. mas-uuliyaddu waa meerto,
hadda waan joognaa, berri cid kale ayaa imaanaysa. ma naqaano ciddana bedeli doonta, laakiin waxaan ognahay in la bedelayo. fursadda aan haysanahay waa inta aan joogno. intaas aan joogno ayaa mas-uuliyadda naga saaran tahay wixii aan qaban karno si hagar la-aan ah inaan u qabanno, oo aan caajis iyo niyad jaleec aan lahayn. haddii muddadeennu ay yar tahay iyo haddii ay badan tahaba, karaankeenna inaan qabanno ayaa nala ka rabaa. caawa in heeso badan iyo ammaan badan naloo akhriyo ujeeddadu ma ahayn, inkastoo aan u mahad celinayo bahda fanka gobolka Banaadir. haddana ujeeddadu waxay ahayd bal inaan is-xusuusino waxyaabihii noo qabsoomay muddadii aan wada shaqaynaynay wax ka mid a. waan aaminsanahay haddii aan sii dheerayno oo sidii aan u wada shaqaynaynay si kasii dhow aan u wada shaqayno, waxaas iyo wax ka badan inay noo qabsoomi karaan. hase yeeshee maalin walba caqabadeeda ayay leedahay. iyadoo ay caqabada jiraan ama ay jiri karaan, ayaa haddana mas-uuliyaddana saarana waxay tahay inaan jiirno caqabadaha ama culeysyada naga hor imaanayo, aanna suuro gelinno waajibaadkii naloo idmaday. waan hubaa haddii aan iskaashanno, aynaan niyad jebin, aan isku xirnaanno, gacmaha aan isqabsanno, wax badan oo hadda naga dhiman oo aan dareemi karno ama noo qorshaysan inaan xaqiijin karno. magaaladeennan waa magaaladii caasimadda ah Soomaaliya. iyada oo hagaagta waxay ka dhigan tahay ama ay la macno tahay dalka dhan oo hagaagay. sida uu u sheegay Professor Dalxa macallinkayga, magaaladan waa maskaxdii ummadda Soomaaliya, waa caasimaddii Soomaaliya. cid kasta oo hagardaameynaysa ama dhibaato u geysanaysa waxay macnaheedu tahay inay Soomaaliya dhibaato u geysanayso. waayo ma jirto meel danaha Soomaaliya oo dhan ay ku wada leedahay caasimadda, meel ay ku wada leedahay ma jirto. sida Soomaaliya ay halkan caasimadda u wada leedahay, meel ay u wada leedahana ma jirto. marka ilaha ugu muhiimsan ee qaranka ama xarumaha ugu muhiimsan ee qaranka Soomaaliya waa halkan ayaa xarun u ah. madaxdii Soomaaliya halkaanay joogtaa, dowladdii Soomaaliya bayskeedii ama fadhigeedii halkaana ah, caasimaddii Soomaaliya iyada ah. sidaa darteed mas-uuliyaddu waxay saaran tahay Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan ciddii yacni loo idmaday mas-uuliyaddaas oo nasiib u heshay inay ama guud ahaan magaalada caasimadda mas-uul ka noqoto ama gaar ahaan ay mas-uul ka noqoto. cid walba waxaa laga rabaa inta ay mas-uulka ka tahay inay meel gaarsiiso oo kayrkeed ay tusiso ama kula tartanto wax la taaban karo.
waad mahadsantihiin sidaa darteed waxaan isfaraynaa oo aan isku guubaabinaynaa waxay tahay waxqabad haddii aan nahay guud ahaan iyo gaar ahaanba taas macnaheedu waxay tahay sida guud ahaan mas-uuliyaddu ay noo wada saaran tahay ayaa gaar ahaanna mas-uuliyaddu noo saaran tahay oo qofna way noo saaran tahay qolo ama degmana waa noo saaran tahay waaxna waa noo saaran tahay waxaa kaloo mas-uuliyaddana saarana ay tahay magaaladan oo aan ku seexino kuna soo toosino ayadoo amni ah oo nadiif ah mas-uuliyaddana saarana waxay tahay oo kale magaaladani inay noqoto magaalo hor joogta tacliinta dalka mar hadday caasimaddii tahay aan wada qirayno ardada ama jaamacadaha ka qalin jebisa ama dugsiyada sare ka qalin jebisa dalkoo dhan oo la ysku daro ayay ka badan tahay bal sanadkii hadda ugu dambeeyey inta imtixaanka dugsiga sare gashay ama dugsiga dhexe gashay firi gobollada intooda kale isku dardar way ka horeysaa taasaa waxay muujinaysaa inay tacliintiina ugu horeyso tiradii dadkana ay ugu horeyso maxaa yeelay tirakoobka ama boqoleyda ama percentage-ka waxbarashada aadda haddii ay halkan ku badan tahay taas macnaheedu waxa waye dadkaa ku badan waay ma jirto magaalo sida halkan oo kale ah oo dadkeenu dhan ay waxbarasho aadaan mudan ilaahay marwooyin inaan horu marino tacliintu waxay macnaheedu tahay inaan horumarino dalka aan horumarino dadkeena inaan horumarino dalka oo waxbartay dadka oo waxbartay waa dalka oo horumaray mudan ilaahay marwooyin ma rabo inaan hadalka sii badiyo waxaan isu dardaarmaynaa dadaal inaan labalaabno shaqada muhiimka ah ee aan ka hayno caasimaddeen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu